kooxdan maafiyada ah ee ugu halista badan dalka Jarmalka waxay doonayaan kaliya inay ka argoostaan nin isagaba noloshiisa ay tahay dagaal oo kaliya xabada iyo gumaca rasaastuba aanan u kala socnayn. Tekken 2 magaca iyo qisada filimka maanta aan daawan doono magaciigu waa Satar. waxaase ku xasuusinayaa in dhamaadka muuqaalka ay taalo su'aal taasi oo aad si maskaxiyana ama qaab fikiraad uga jawaabi karto. bilowga filimku waxa uu ku bilaawanayaa goob ay taalo janaazo. waa tuulo kamid ah tuulooyinka Jarmalka oo lagu magacaabo Torbosh. kasoo muuqanaya janaazada maafiyada ugu halista badan dalka Jarmalka maadaama ay yihiin dadka dhinta saaxiibadooda. hogaamiyahooda oo lagu magacaabo Murad waxa uu sheegayaa kaliya inay ku dhaqaaqayaan argoosi ayna soo dili doonaan Brian Myth oo ah ninkii dilay. intaa kadib muuqaalku waxa uu wareegsanayaa magaalada Los Angeles. Brian oo ka shaqeynaya goobta lagu dhaqo gawaarida markii ay u soo dhamaato shaqadu waxa uu soo aadayaa guriga xaaskiisii hore ee Lena si uu u arko gabadhiisa, balse Lena waxay u sheegaysaa in gabadhiisu ay raacday saaxiibkeed. aad ayuu ugu murugooday markii uu maqlay waxa uu soo aadayaa dhinaca guriga gabadhiisa saaxiibkeed isagoo adeegsanaya GPRS taas uu goor hore ku xiray taleefanka gabadhiisa. intaa kadib waxa uu soo wadayaa gabadhiisa si uu u siiyo tababar dhanka gaari kaxaynta ama darawalnimo maadaama ay jirto da ahaan 18 sano ayna ku fashilmatay 2 mar imtixaanka lagu helo leysinka kaxaynta gawaarida. marnaba iyada kuma faraxsanay la jirkiisa maadaama dartiisa loo afduubtay 3 sano ka hor. intaa kadibna muuqaalku waxa uuna keenayaa Paris, France halkaasoo maafiyada Jarmalka ay yimaadeen guriga John Gaylord oo saaxiib la ahaa Brian. waxay u xanuujinayaan si aad ah iyaga oo raba inuu siiyo xog ku saabsan Brian iyo goobta uu joogo, balse isagu waxa uu sheegayaa inuusan ba ka ogeyn wax xog ah. ugu dambeyn waxay ogaanayaan in Brian uu ku soo wajahan yahay Istanbul, Turkey si uu halkaas ugu fuliyo howlgal khaas u ah. maalinkii xigay Brian waxa uu booqanayaa Lena. wuxuu arkayaa iyadoo oynaysa. waxay u sheegaysaa inay la dagaashay ninkeeda hadda taasna ay keentay inuu ka joojiyo safarkeedii China, balse Brian waxa uu sheegayaa iyadii ay Kem inay u raaci doonaan safarkiisa Istanbul. Lena way ka diidaysaa marka hore waxayna u sheegaysaa inaysan uga kalsooneen nafteeda isaga. dhinaca kale kooxdii maafiyada Jarmalka waxay imaanayaan Istanbul iyaga oo soo maraya qaab dhulka ah halka Brian xaaskiisa hore iyo gabadhiisina ay ku soo wajahan yihiin Istanbul, balse Brian waxa uu helayaa flight ka horeeya flightka xaaskiisa iyo gabadhiisa. intaa kadib waxa uu imaanayaa hotel isaga oo wacay saaxiibadiisii uu la kulmo. xaaskiisa iyo gabadhiisana markay yimaadaan hotelka isagoo ku hadlaya taleefan waxaa si kadiisa ula hadlaysa gabadhiisa. wuu soo dhaweynayaa. intaa kadibna isagu waxa uu habeysanayaa sanduuq ay ugu jireen hub. habeenkii Brian waxa uu gabadhiisa u wadayaa banaanka si uu la soo qaato waqti qurux badan. isla xilligaana waxa uu weydiinayaa waxa ka dhaxeeya iyada iyo saaxiibkeed, balse iyadoo la kaftamaysa waxay u sheegaysaa inaysan arrintaa waxba ka ogeyn. waxay bilaawayaan inay ka sheekaystaan sheekooyin hore iyadoo weydiinaysa siday isku barteen isaga iyo hooyadeed. intaa kadibna waxay ku soo laabanayaan guriga. maalinkii xiga waxay soo qaadanayaan gaari taksi ah si ay ugu soo damaashaadaan magaalada quruxdeeda. intii ay saarnaayeen gaariga Brian waxa uu dareemay cabsi. waxa uu darawalka ku amriyaa inuu maro wado kale halka Lena uu ku amriyay inay ku laabato hotelka halkaasi uu u arkay inay u tahay amaan, halka isagana uu soo qaadanaya gaari kale. waxa uu wacayaa gabadhiisa Kem laakiin kama qabanayso. dhinaca kale Lena uma suuragelayso inay goobta ka sii baxsato maadaama maafiyadu ay daba socoto halka Brian uu markaas si toos ah ula dagaalamayo qaar kamid ah kooxdii maafiyada. intaa kadib isaga oo raba inuu dilo mid kamid ah maafiyadii waxaa soo baxay mid kale oo isaguna qori ku hayo xaaskiisii hore ee Lena, balse Brian waxa uu ku amriyaa inuu ka qaado biskoolada. wuxuu isla waqtiga wacayaa gabadhiisii Kem. wuxuu u sheegayaa inay qatar ku jirto sikin walbo. wuxuu ku amriyaa inay aado goob aamin ah. marka uu hadalka dhameeyana waxa uu jebinayaa taleefanka halka kooxdii maafiyada ahaydna ay hal mar ku soo boodayaan taasi oo keentay inay qabtaan isaga iyo xaaskiisii hore ee Lena halka gabadhiisii Kem ay ka soo baxayso qolkii ay ka degneed hotelka iyadoo soo aadaysa flightka ka hooseeya ama dabaqa ka hooseeya si aysan u fahmin maafiyada. daqiiqada kadibna waxaa imaanaya hotelka maafiyada. waxay dilayaan waardiyaashii hotelka. isla xilligaana Brian waxaa la geeyay qol banaan ah oo cidna aysan joogin. waxa uu isku dayayaa inuu la soo baxo taleefankeed u ahaa oo u qarsanaa. waxa uu ka soo saarayaa qaybta hoose ee lugtiisa. kadibna waxa uu wacayaa saaxiibkiisii Zam balse kama qabanayo. waxa uu mar kale wacayaa gabadhiisii Kem. waxay u sheegaysaa inay joogto meel aamin ah, balse isagu waxa uu sheegayaa inay ka soo baxdo qolka ayna soo qaadato bam gacmeed kadibna ay ku tuurto garaash maran oo aan gaari ku jirin si markii uu maqlo codka qaraxa uu u ogaado inay iyadu ku soo dhowdahay. intaa kadibna waxa uu qarsanayaa taleefanka waxaana qolka soo galaya hogaamiyihii Murad oo wato sawiro si uu u tuso Brian raggii uu ku dilay gacantiisa. waxa uu Murad mar kale tusayaa sawirka wiilgiisii oo Brian koronto ku dilay, laakiin Brian waxa uu ku dhahayaa waan sameeyay wixii aan sameeyay maadaama isagu uu afdubtay markii hore gabadheeda. balse Murad maba doonayn hadalka inuu sii dheeraado isagoo oo ka doorbidaya kaliya inuu ka argoosto. waxa uu aadayaa qolkii ay ku jirta Lena. waxa uu keenayaa qolkii uu ku jiray Brian. waxa uu lugaheeda ku xirayaa meel sare si qoorteeda ay ugu soo laalaasanto kadibna maskaxdeeda ay u lumisay dhiiggii imaan lahaa ayna ku dhimato. intaa kadibna Brian waxa uu ku dhahayaa haddii aad isku dayda inaad aado dhinaca gabadheeda Kem waxaad dhadhamin doontaa albaabka dacaarta. muddo kadibna Brian waxa uu helayaa fursad uu uga baxsado isagoo xarig
xariga iska furaya kadibna waxa uu ka furaya xariga Leonard halka gabadhiisa Kemna uu u sheegay inay tuurto bam gacmeedka inta kadib markii uu tuurtana waxa uu sheegaya isaguna inuu furi doono qaac ayna soo aaday dhinaca uu qaaca ka baxayo muddo kadib waxa uu furay qiici markii ay aragto qaaca waxa ay u soo ordaysaa dhinaciisa Kem waxa ay imaanaysaa goobtii uu qaaca ka socday halka Brianna uu dilayo qayb kamid ah kooxdii looga tagay inay isaga ilaaliso isla xilligaana Kem waxa ay ku ordaysay dusha sare ee guryaha ilaa uu qabtay mid kamid ah maafiyadii balse waxa gadaal ka tooganaya aabaheedii Brian inta kadib waxa uu habsiinaya gabadhiisa isagoo u sheegay in hooyadeed ay imaan doonto iyadoo nabad qabta kadibna waxa ay soo dafiyaan gaari taxi ah si ay u soo wadaan Leonard balse markii ay yimaadaan goobta maba joogto oo waxa mar hore kaxaystay maafiyadii waxay ku soo laabanayaan gaariga iyaga oo soo aadaya meel aad ugu fog meeshii ay joogeen kooxdii maafiyada kadibna waxa ay ku soo jihaysanayaan dhinaca iyo safaaradda Amerika muddo kadib markii ay yimaadaan safaaradda Brian waxa uu wacayaa saaxiibkiisii Sam isagoo ka codsanaya inuu u sheego qof walba oo ilaalin kara wuxuu kale u sheegayaa in kooxda maafiyadu ay u soo socdaan dhinacooda inta kadib Sam waxa uu sheegayaa in kaliya safaaraddu ay tahay goob aamin ah Brian waxa uu safaaradda uga tagayaa gabadhiisii Kim kadibna waxa uu soo aadayaa dhinacii maafiyada si uu u raadiyo xaaskiisii hore ee Leonard ugu dambeynna waxa uu imaanayaa goobtii waxa la dagaalamaya qayb kamid ah kooxdii ilaa uu soo galo gudaha haddana waxa la dagaalamaya waardiyaashii qaaska u ahaa Muraad taasi oo keentay in Brian uu fursad u helo inuu biskoolada ka dafo mid kamid ah ilaalada kadibna uu laayay intii kale inta kadibna waxa uu tagay Muraad oo ku jira qol yar kadibna waxa uu weydiinayaa su'aal ma ku noolyihiin wali wax wiilal ah Muraad waxa uu ku jawaabayaa waxaan haystaa laba wiil oo halis ah balse Brian waxa uu ogaanayaa haddii uu dilo Muraad in wiilashiisa si la mid ah iyaguna ay u soo aargoosan doonaan waxa uu go'aansanayaa inuu isaga tago oo uu iska dhaafo waxa uu biskoolada ku tuurayaa dhulka isagoo iska dhigay qof baxaya oo kale balse Muraad oo arkay inay u tahay fursad waxa uu soo qaadanayaa biskoolada si uu ugu dhufto Brian laakiin biskooladu kuma jirto wax rasaas ah inta kadibna Brian waxa uu Muraad madaxa u gelinayaa marwaaxad ilaa ay naftu ka baxdo muddo yar kadibna waxa uu soo aadayaa dhinaca ay ku jirtay Leonard xilligaana waxa ay ahayd mid suxsan 3 isbuuc markii ay ka soo wareegatay Brian gabadhiisii Kim waxay ku baasaysaa imtixaanka darawalnimada waxayna helaysaa liisankii ay raadin jirtay muddo badan ugu dambeynna filimku waxa uu soo dhamaanayaa aabaheed oo u sameynaya xaflad dhacdada filimkan waxa la soo daayay 2012 haddana waxaan rajeynayaa in sharxaadda filimkeeni maanta uu halkaasi ku eg yahay balse waxa inoo dhiman su'aasheeni aan kugu soo sheegay bilowga muuqaalka waxaad haysataa kaliya 10 second si aad u cabirto ra'yigaaga ama fikirkaaga koox dhalinyaro ah oo saaxiibo ah waxay aadayaan safar habeenkii waxay degayaan meel banaan inta kadib 3 kamid ah dhalinyaradii waxay aadayaan duurka si ay u soo guraan geedo waxa ay ugu tagayaan dabka Lucy markii ay soo laabtaan waxay arkayaan gabadhii Lucy oo ah mayd waxa ay la xiriirayaan oo ay wacayaan booliska laakiin booliska markii uu yimaaday waxa uu bilaabay inuu weydiiyo su'aalo xilligaana Mark waxa uu ahaa saaxiibkeeda halka Kaytan ay ahayd walaasheeda sidoo kale Jiisna waxay ahayd saaxiibteeda ama best friendkeeda boolisku waxay ogaadeen inta aysan dhiman Lucy Mark waxa uu watay xilliga mindi iyo faas halka Kaytan ay wadatay tiishka qoyan sidoo kale xilliga Jiis iyaduna waxay wadatay janta siigar jijin boorso yar oo ay ku jirto qalabka fudud ee caafimaadka iyo sawiro sidoo kale toorey markii ay ogaadeen boolisku waxa ay wadawateen iyaga oo dhan waxay isla markiiba ogaadeen qofkii dilay Lucy haddaba adigu ma soo saari kartaa qofkaas oo ma sheegi kartaa waxaad ra'yigaaga ku cabiran kartaa qaybta commentiga waxaan ku rajeynayaa inaad su'aasha si fiican u fahantay aadna ka jawaabi doonto qaado waqti wacan